الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك walaalada maalin wanaagsan isku soo noqod wanaagsan insha Allah bidnillaahi kariim waxaan rajeynayaa meel walba oo joogtaan caafimaad insha Allah kuwii ku soo ku dhameysto Ilaahay inuu idinka dhigo aan dhamaanteena naga wada dhigo maanta walaalada waxaan idin la share gareynayaa insha Allah bidnillaahi kariim sida aan u sameysto pasta lasaanyada insha Allah waa taas aragtaan hadda sidee ku soo baxday maasha Allah sidaas quruxda badan ayay ku soo baxday marka waxaan idin la wadaagayaa qaabka aan u sameysto iyo sida aan u dalacdo iyo sida aan u karsado insha Allah bidnillaahi kariim marka ila socdo walaalada hadda waxaan dabka saartay ugu horeyn basashii ayaan dabka saartay in yar oo saliid ayaan digsiga ku shubtay marka basasha ayaan wax yar shiilanaynaa insha Allah bidnillaahi kariim kadib hadda waxaan ku ritay sidaad aragtaan hilib shiidan waa hilib shiidan insha Allah hilib shiidan ayaan ku ritay marka uu isku yara dhagdhagan yahay hilibka marka waan yara kala fujinayaa insha Allah bidnillaahi kariim marka hadda waxaan dalacanaynaa suugadeeni aan ku darsan lahayn baastada insha Allah aan dusha kaga darsan lahayn marka hadda walaalada qaaliga ah waxa dabka ii saaran aad aragtaan waa basashii iyo hilibkii waxaan ku darsanayaa oo kale xawaashiyadii aan ugu talagalay in aan ku darsado insha Allah oo aan ku karsado marka hadda waxaan ku daray barbarooniga shiidan sidaad aragtaanba waxaan ku kordhinayaa oo kale maxaan iraahdaa xawaashiyar oo kaari camal ah oo isku jirjir yar cadi ah waxaan kaloo ku kor darsanayaa oo kale insha Allah in yar oo huruud ayaan ku darsanayaa waxaan kaloo ku darsan doonaa insha Allah bidnillaahi kariim maraq digaag hadduu Ilaahay yiraahdo intaas ayaan markaas kadib si fiican isku dhex gelinaynaa insha Allah kadib ayaan shiilaynaa kadibna waxaan ku darsan doonaa tamaatadeeni noo diyaarsaneed isla socod wanaagsan asxaabteeda qaaliga ah waad ku mahadsantihiin sidaad ila socotiin maasha Allah walaaladeyda ugu cusub ee ugu soo kordhaya iyagana maasha Allah soo dhawaada ayaan leeyahay aad iyo aad ay u mahadsantihiin waxaan idin leeyahay fiidiyoyada noo share gareeya insha Allah like comment intaba hadduu Ilaahay yiraahdo asxaabta ugu cusubna waxaan leenahay haddaad soo booqataan subscribe kana la dhaafina gambaleelkana furta si aad uga mid noqotaan asxaabta ugu xiran insha Allah bidnillaahi kariim oo aad ula socotaan waxyaabaha aan ku soo kordhino channelka hadduu Ilaahay yiraahdo marka asxaabteena qaaliga ah hadda waxaan isku gudgudisanaynaa waad aragtaan intii aan isku dardarsanay waan isku daboolanaynaa insha Allah kadibna hadda waxaan sameynayaa waan yara shiilayaa markuu isku yara shiilmo waxa ii diyaarsan yahay aan soo googoostay yaanyada freeshka ah insha Allah yaanyada ayaan ku darsanayaa hadda sidaad aragtaanba iyadana waan isku gudgudin doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo marka waan isku daboolanaynaa insha Allah waxaan kaloo ku darsanayaa oo kale khudradda yaryar quruntiga yaryar digirta iyo kaaroodka iyo isku jirjira ah marka iyadana waan ku dul darsaday sidaad aragtaanba marka hadda intaas ayaan isku karsanaynaa intaan isugu kaayso koreysa ayaan sugeynaa insha Allah oo soo shiilmayso waxaan soo tuman doonaa toonteeni hadduu Ilaahay yiraahdo sidaas ila socdo walaalad maasha Allah hadda sidaad aragtaan buu is dhexgalay digsigii isku kartay si fiican ayay iskugu bislaatay maasha Allah hadda marka waxaan ku darsanayaa toontii aan soo tuntay insha Allah sidaad aragtaan batoon aan soo tuntay ayaan ku darsanayaa insha Allah bidnillaahi kariim waan isku gudgudinaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo si fiican ayaan u walaaqanaynaa weli waxaan sugaynaa inay noo soo karto si fiican suugadeena noogu soo karto insha Allah bidnillaahi kariim isla socod wanaagsan ayaan idin leeyahay suugada sidee ku soo baxdana waad arki doontaan insha Allah marka sida ila socdo walaaladii qaaliga ah haddana waan ku soo noqonay daboolkii ayaan ka qaadanay insha Allah sidaad aragtaanba suugadeeni way noo bislaatay wax yar ayaa dhiman in yar ayaa noo dhiman insha Allah inta sir ayaan sugeynaa hadduu Ilaahay yiraahdo kadibna waan ka qaadan doonaa kadibna waxaan gali doonaa hawsheenii baastada hadduu Ilaahay yiraahdo iyo waxyaabihii kale ee aan ku darsan lahayn in aan sameysano insha Allah bidnillaahi kariim asxaabteeda qaaliga ah marka waxaan idin leeyahay daawasho wacan si fiican u dhameysta fiidiyowga insha Allah sidaad uga faa'iideysataan haddaad garanaysaan waad garanaysaan insha Allah baastada nooca aan karsanayo waa noocan insha Allah sida ula socdo walaaladay marka hadda waxaan sameysanayaa halkan waxa iigu jira subaga fadheen butarka ah maxaan iraahdaa bilaa cusbada ah ayaan jab qayb kamid ah ayaan xabada qayb kamid ah ayaan ka soo goostay marka distidan ayaan ku dhalaalinayaa sidaad aragtaanba kadibna waxaan ku darsan doonaa markuu ii dhalaalo in yar oo bur ah insha Allah burka iyo subaga ayaan haddana isku shiilanaynaa insha Allah bidnillaahi kariim marka hadda sidaad aragtaanba waan dhalaalinay subageeni intaas yar ayaa dhiman dabkana waa inaad u gaabisaa haddaad dabka u dheereysid waa uu kaa gubanayaa subaga madoobaad ayuu kaa noqonayaa marka asxaabteeda qaaliga hadda sidaad aragtaanba waxaan ku darsanay
burkeeni in yar oo bur ah oo qiyaasta adi 2 mulqaacadood camal ah qaandada yar labadeed camal ah bur badan looma baahno intaas ayaa yacni hadhowti waxay noqonaysaa waxoogaa badan marka intan ayaan hadda isku shiilaynaa insha Allah burka ayaan baabiinayaa si uuna burbur u yeelanin sidaad aragtaanba kadib hadda marka inta isku shiilno oo baabi'iyo burkana waxaan ku darsan doonaa caano insha Allah caanaheena caadiga ah ee caano xoolaadka caadiga ah ayaan ku darsanaynaa insha Allah kadibna wuu isa soo adkeyn doonaa waad arki doontaan insha Allah bidnillaahi kariim Ramadaan mubaarak walaalade hadda waa kan caanihii ayaan ku darsanay sidaad aragtaanba waxoogaa caano ayaan ku darsaday aniga hadda bakeerina kuma soo shubin laakiin baakadkii ayaan dusha kaga shubay oo u qabtay dusha marka qiyaas baa aniga ku socdaa gacanta ayaan ka qiyaasanayaa insha Allah marka hadda waan isku walaaqaynaa insha Allah dabkana wuu u gaaban yahay si uu rasiin yar u soo noqdo kadibna markuu rasiin yar u soo noqdo insha Allah waxaan gali doonaa hawsheeni kale baastada haduu Ilaahay yiraahdo maasha Allah haddana waxaan bilaabanay baastadii inaan habeysano insha Allah bidnillaahi kariim marka hadda waxaan meesha marmarinayaa waa subagii iyo burkii aan isku soo karsaday iyo caanihii waxaan kaloo dusha kaga yar darayaa in yar oo suuga ah si aanay igaga qabsanin maxaan iraahdaa hadhowti marka intaas ayaan salka u dhigayaa kadibna waan isdul saaranaynaa insha Allah bidnillaahi kariim dabaq ayaa la isku dul saarayaa marka ila socda sidaas ila socda marka aniga marka hore waxaan sameeyay baastada iyadoo qeyrin ma aanan yacni soo baastada iyo qeyrin calashaan ma saarayo meesha oo sidii bacda aan uga bixiyay ah biyo ayaan wax yar huf ku soo siiyay oo ku soo kariyay in 2 daqiiqo camal ah marka biyo waan ka miiray markaas waan kala soo dhex baxay xabad ayaan ula soo baxay meel ayaan saartay ka bacdi hadda way qabowday marka hadda waxaan sameynayaa sidaad aragtaanba waa taas iyadoo sideedii ah aan meesha dhiganayo insha Allah marka wax yar biyo ku soo karisid mid waxa jirta biyo lagu kariyay mid aan lagu karinin marka ani waxaan jeclahay adeegeeda iyadoo ah inaan saarin inaan wax yar huf soo siiyo oo biyo 2 daqiiqo camal ku soo kariyo kadibna aan dhigto saxanka aan ku dul shubto suugadeeda iyo wixii kale ee markaas aan ku darsanayo marka asxaabteeda qaaliga sidaad aragtaanba hadda suugadeeni ayaan dusha kaga shubay waxoogaa yar kadibna waxaan ku darsaday subagii iyo burkii aan isku soo sameystay iyo caanihii kadibna waxaan ku darsan doonaa waxoogaa kaas ah insha Allah bidnillaahi kariim kaaskeena ama cheese sida u taqaanaan anaga meesha joogno kaas ayaa looga yaqaanaa wadankan ku noolahay marka waa cheese-ka budada ah insha Allah cheese-kaas budada ayaan in yar dusha kaga dardarsaday haddana qaybtii labaad ayaan haddana dhigtay qaybtii labaad ayaan haddana maxaa iraahdaa ku shushubayaa suugadii sidaad aragtaanba marka sidaas ayaa lagu dhameynayaa qayb ayaa la isku dul dhigayaa qayb kasta markaas aad u dul dhigto sooskii suugadii aad dusha kaga shubto burkii iyo subagii iyo caanihii aad soo karsatayna dusha kaga shubto kaas yar aad dusha kaga shubto khalaas way isku dhamaatay haddana qaybta kale ayaa haddana dusha ka saaraysaa ilaa dhamaadka sidaas ayaa ku dhameynaysaa ilaa baastadaada ee kaaga dhamaato iyo alaabahaaga kale marka walaalada qaaliga ah sidaas ayaan ku wadaynaa insha Allah bidnillaahi kariim markay noo soo dhamaatana waad arki doontaan insha Allah sida uu ku soo baxana waad arki doontaan hadduu Ilaahay yiraahdo daawasho wacan asxaabteeda hadda waa qaybtii ugu dambeysay kaaskii ayaan saas ugu shushubayaa insha Allah marka asxaabteeda qaaliga ah waxaan gashanaynaa ovenkeeni oo 250 noogu kululeysan asxaabteeda qaaliga ah alaabteeni marka hadda waan soo diyaarsanay waxaan inii sheegayaa markaad maxaa iraahdaa aad biyo baastada ku kariso uma baahna yacni ovenka in badan inay ku sii jirto ama qoyaan badan aad suugadaada u sameyso oo dheecaan badan si ay baastada kugu karto marka haddaad sidan u karsato oo baastada marka hore biyo ku soo karsato ugu yaraan adiga 25 daqiiqo nus saac ma gaarayso intay kuugu jireyso waa inaad ka war haysaa si ayna kaaga gubanin maxaa iraahdaa aad fiirisaa marka waxay kugu qaadanaysaa dee u badato 25 daqiiqo meelahaas inay kuugu bislaato marka asxaabteeda qaaliga ah baastadeeni lasaanyadeeni sidaas ayay ku soo baxday aad aragtaan way quruxda badan ma sha Allah tabaarakallah aan salaato yar ayaan u soo diyaarsanay marka hadda waan soo googoosanay saxankii ayaa aan ku dubnay ayaan yacni ku soo dhex googooyay marka sixni ayaan soo saaranay aan salaatadaas yarna waan u soo diyaarsanay mooskiisii marka ma sha Allah tabaarakallah asxaabteeda qaaliga ah haddaad ka hesheen waa ka like share comment
waana ku mahadsantihiin. aniga noocaan u karsado waa noocaas insha Allah. intaas ayaan idinla sheer gareynayo, qofba nooc ayuu u karsadaa. marka aniga qaabkan u karsada ayaan maanta idinla sheer gareynaya baasta lisaayada. marka walaadee hala kala faa'iideysto insha Allah bidnillaahi kariim. intaan aqoonina ha ka faa'iideysato hadduu Ilaahay yiraahdo. fiidiyoyadana share noo dhaha insha Allah. waana ku mahadsantihiin. marka waxaan idinkaga tagayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. رمضان مبارك إن شاء الله كوي خير كل ما يسته إلهي هنقدره بشهر رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.